kooxda kubadda cagta ee Arsenal ayaa si rasmi ah ugu dhawaaqday inay la soo siixdeen ciyaaryahanka u dhashay waddanka Ukraine ee u ciyaari jiray kooxda kubadda cagta ee Manchester City ee la yiraahdo Zinchenko ayaa Arsenal u siixay heshiis ku kacay ilaa 4 sano. ciyaaryahankan ayaa ka ciyaari kara laba position, waa booska number 3-ga iyo sidoo kale qadka dhexe. Arsenal ayaa booska number 3-ga dhibaato badan ku qabta marka la eego ciyaaryahan Kieran Tierney oo inta badan aan u ciyaarin kooxda kubadda cagta ee Arsenal isagoo dhaawacyo ku maqan. ciyaaryahankan ayaa qaab ciyaareed fiican ku soo bandhigay kooxda kubadda cagta Manchester City dhamaadkii xilli ciyaareedkii kulankii u dambeeyay ee la ciyaareen kooxda kubadda cagta ee Aston Villa isagoo bedel lagu keenay ciyaartan isbedel weyn ku sameeyay. ciyaaryahankani muxuu ka bedeli karaa kooxda kubadda cagta ee Arsenal ayaa kulan la ciyaari doonta kooxda kubadda cagta ee Chelsea, kulanka oo dhici doona habeenimada soo galayso Axadda xilli dambe 2:15 habeenimo ama 3 habeenimo. kulankaasi oo la ciyaari doonta kooxda kubadda cagta ee Arsenal kooxda Chelsea. ciyaaryahankan ayaa la filayaa kulankaasi inuu qayb ka noqdo inuu ciyaaro kooxda kubadda cagta ee Arsenal.